caawa waxaan halkaan isugu nimid inaan odayaashii iyo ciddii ergooyinkii noo yimidna ku sagoontino xildhibaanada la doortayna ay bilaabaan shaqo inay bilaabaan oo ay wax qabtaan ay gartaan in mas'uuliyadi fuushay marka ugu horreysa waxaan idiin sheegayaa xildhibaanada dhabta ee galmudug waa idinka madaxweynaha dhabta ahina waa aniga sidaad ogtihiin adduunka haddaan sharci la isticmaalin wixii ka soo haraa waa fawdana uma baahnin aniga waxaa lay doortay 3dii bishii shanaad 2017 maalinta berrito laga bilaabo waxa ay hartay 15 bilood maalintii 15 bari dhammaato waxaan idinka codsanayaa ciddii aad doontaan idinkaa dooranaya ma aha xildhibaano imaanayo kale adinka waqtigiinu waa 4 sano sida dastuurku sheegayo ciddii dastuur khilaaftana ayada u taal waxa la dhoodhoobahayo oo meelaha lagu hayana wax shaqaynaya maaha waxaan rabaa inaan xildhibaanada baraarujiyo odayaasha baraarujiyo dhalinyarada baraarujiyo oo aan ku baraarujiyo in ay yihiin kuwa xaqa iyo dariiqa iyo sharciga ku taagan wixii sharci darraa ninkii samaynaya u taal waana ku qayboobi doonaa insha allahu tacaala galmudug sidaad ogtihiin waxaa la aasaasay 2006 maanta waxaa laga joogaa 14 sannadood dadku waxay moodaan magaca inuu hadda dhashay hadda ma dhalan laakiin nasiib wanaag sanadadii 2014 iyo 15 ayaa waxaa lagu guulaystay in la kaamilo oo la isku daro labadii gobol oo la isku daray wax badan baa ka soo kordhay wax fiican baa ka soo kordhay aniga madaxweyne iga horreeyay runtii kuma aanu guulaysan inuu galmudug 6 degmo iyo barbaa xor ah intii kala shabaab haysta waa 10 degmo waxa uu joogay asaga 3 degmo kaliya aniga waxaan fakaray markaan imid inaan dib ugu laabto oo horta wax kasta oo kale shaqaa inta joojiyo aan raadiyo in galmudug la isku daro oo ahlu sunna la heshiiyo ahlu sunna waa ku guulaysanay insha Allah taala ilaahayna waa nagu garab galay gaalka ayaad ogtihiin wixii dhibaato ka socday caawadu waxaan tagay waxaan u maleynayaa bishii May oo lay doortay dhexdeedii bay ahayd 3dii baa lay doortay waxaan tagay 17 ayadoo 6 meelood u kala xiran ayaan tagay nasiibkayga iyo barakadayda iyo mooji waxay tahay galmudug haweenkaas caawada la sufuranta ilaa markii dambe aniga madaxweynuhu aan tagnay tiyo isku furano nabada gaalka ayaa wada ogtihiin inta sannadood ay dagaal ka socday dhibaatada waxa aniga foxkaygu ahaa oo dhan anigu nin weyn baan ahay Soomaaliya wixii ka soo ka dhacana waan soo joogay wax walbana waxaan ogahay ruudka iyo meeshay ka yimaadeen iyo sida ay ku dhamaan karaan halkeeda Soomaali iyo gaar ahaan reer galmudug xoog lagu caburin karo si kasta dilay lagu caburin karo waa dad isku kalsoon waa dad hadday geedooda fariistaan heshiin kara waxaan ilaahay ka rajaynayaa kuwa haddana fidnaynaya oo dhibaatada nagu wada oo aan u jeedno inay meel daran nagu celinayaan ilaahay si hanaga yiraahdo ilaahay oo si naga dheh ilaahay oo gacan naga sii ilaahay oo nabad waarta nasi ilaahay oo kuwa maaragtay khayr beelayaasha ilaahay oo dhibtooda naga hay waxa kaloo xiga saad ogtihiin halkaan gobolada 2017 bishii labaad 18 bishii labaad waxaan go'aan baan wada gaaray dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka sharci baanu samaynay sharcigaas wuxuu lahaa ciidamada nooc kasta ay yihiin hadday yihiin military hadday yihiin police hadday yihiin nabad sugid hadday yihiin asluubiya nooc kasta ay yihiin marka
ay joogaan gobolka ay joogaan ayay amar ka qaadanayaan federaal amar ka qaadan maayaan taliyaha la keenayo inuu noqdo taliye la isla ogyahay iyo taliye raalli la isaga yahay galmudug ama goboleed kasta ciddii uu ka dareemo inaysan la shaqaynayn wuxuu xaq u lahaa inuu bedelo waxaa nasiib darro ah xasan cali khayre markuu halka yimid inuu dhallinyaradii iyo ciidamadii nooc kasta ay yihiin afka ugu tiray kulligood inay federaal yihiin war ciidamada caawa joogaa federaal waxaa la yidhahdaa ciidamo inta lasoo qoro gobollada iyo degmooyinka laga soo qoray laysku daray kuwaasaa federaal la yidhahdaa federaal lama yidhahdo ciidan gobolkii laga qoray jooga gobolkaa leh waxaan uga digayaa oo aan rabaa inaan u sheego dhammaan ciidamada jooga kulligood waa ciidamo galmudug wax ciidan oo federaal la yidhahdaa ma jiraan haddii ay mushaar ka qaataan mushaarku waa xaqoodii ma aha in dowladda galmudug waxay ka mid tahay dowladda federaalka ah qayb bay ku leedahay waxay hayso waa qaybtoodii ee ma aha lacag hayriya farmaajo jeebkooda ka siiyaan ma waa qaybkoodii xaq bayna u leeyihiin waana yeelan doonaan waxaan uga digayaa oo jeclaha inaan u sheego yaan laydinku dumin gobolkiina caawa dhuusamareeb waxaa ka taagan dhibaataa ka taagan meel walbana waa imanaysaa allihiin hadduu alla yahay ka waantooba in gobolkiina laydinku dumiyo dadkiinana halaynina guryihiinna ha duminina yaan laydin adeegsan oo laydin adeegsan xaqdarro lagula kacahayo galmudug intaas ayaan jeclahay dhammaan ciidamada inaan u sheego ayaga ayaana xaq u leh mushaarkooda xuquuqdooda garaadahooda ayagaa leh ma aha mid dowladda federaalka ay siiso gobolkaas siin kara ayaguna khasab bay ku noqonaysaa inay aqbalaan laakiin haddii gobolkii ayagii laysku diro oo la yidhaahdo gobolku cadow uu idiin yahay ogaada waxa laydinku dirayaa waa gobolkiina iyo dadkiinni wey waxa laydinku ugaarsanaya oo inta meel laydiin diro leeyahay soo qabta ama soo dila ogaada waa dadkiinni waa dalkiinni waa gobolkiinni berrita waxaa ka socota doorasho dhuusamareeb sida la leeyahay insha allah waxay noqon doontaa doorashadii cadaado lagu doortay baasto midka la dooranaya waa kii baasto sameeyo cadaado keenay kan ku xigaana waa kii qaabilay oo maxamed xaashi oo markaa taagnaa meesha gacanna waa kii kaloo joogay kama duwanaan doonto mana ka duwanaanayso tii baasto oo la doono weligood waa taqaanaa dowladda federaalku inay dowlad ka kalfisto waa caadi waa caadadooda weeye annaga dowlad baan nahay madaxweyne waa jooga baarlamaanka waa jooga cid wali waa joogtaa ma aha inay dad soo qaadaan oo xamar ka soo daadgureeyaan xarunta xaafisooda ka shaqaysa oo yidhaahdaan xildhibaanaad tihiin haddana ninkaan doorta walweligiin ma maqasheen ilaah baan ku dhaarshay dadka waa la siiyaa gacan haddii la rabo ha la siiyo hoos ha loo siiyo laakiin dowladdu waxay wadataa xildhibaanadan waxay wadataa madaxweynahan macnaheedu waa maxay waxyaalaha qaarkood wax loo dulqaadan karo maaha wax la dhegaysan karo maaha wax la akhrisan karo maaha dowladda hebel bay wadataa hebel waa in la doortaa xildhibaanada waa inaan yeeshaa madaxweynaha waa inaan yeeshaa alloor dadkana maadigaa leh waa dhibaato weeye waxaan odhan lahaa dowladda federaalka arrimahaas haddaysan ka waantoobin way ku ceeboobaysaa kuraasta ay fadhiyaan bay ku noqonaysaa inay laftoodu khatar ku galaan waxaa kaloo xiga waxaan idiin sheegaya adduunku sharci buu kala socdaa galmudug sharci bay leedahay dastuur bay leedahay dowladda federaalka ee dastuur bay leedahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo kulliba dastuurkaasi ku joogaan ikhwaanayaalow ninkii dastuur sharcigii iyo dastuurkii lagu doortay ninkii ku tunta oo tuuraa asagu ma haysanayaa meeshaad u malaynaysa waa maya hadduu asagu diido sharcigii lagu doortay cid ku ixtiraamaysaa ma jirto farmaajo madaxweyne maaha ra-iisul wasaare maaha ra-iisul wasaare hadday sharciga diidaan intaasay ku yihiin waxaan u baahannahay inay faraha nooga qaadaan gobolkayaga annaga iyo ahlusunna waljamaaca annagaa heshiinay annagaa shalay isku tagnay berrina annagaa isku tagayn odayaasheedii ikhyaarteedii dhallinyaradeedii baarlamaankeedii wasiiradeedii kulli waa joogna annagaa heshiinayna annagaa isku tegayna annagaa wax ayaga samaysanayna allahooda duco leeyahay faraha naga qaaday
waxay doortaan oo caawa anaale la yidhahdaa ma jirto hore bay u dhacday nimanka xildhibaanada ee sanitarada ah hadda dhooban dhuusamareeb waa kuwii cadaaday inta yimid boobay kuraasta in badanoo ka midi haddana waxay rabaan inay kuraasta soo socoto 2021 boobaan warmaba gaaraysaan adinkii madaxdiinuba haddii aynaan nidaamka ilaalin iyo sharciga ummaddu way idinka hor imaanaysaa waa laydinku kacahayaa xamar ayaa maanta aad ogtihiin waxa ka jira asagaa kacsan xamar baynaan ka badbaadayn haddaynaan gobollada ka badbaadayn haddaad gobollada ka badbaadaan xamar baynaan wallaahi ka badbaadayn mana shaqaynayso sida ay ku socdaan wax shaqaynaya maaha daraad kaamirooyinkii jidadka lagu xiray oo ay ku baxday malaayiin doolar dhowr saacadood baa shabaab ku burburiyey kulligood xataa kii madaxtooyada horteeda ku xirana waa jabiyeen ayadoo loo jeedo barqadii 3 saacadood subaxna way jabiyeen war ilaahay baan idinku dhaarshay ciidamadii la rabay inay ilaaliyaan kulligood dhuusamareeb joogaan magaalada dhuusamareeb la yidhaahdo waxaa jooga ugu yaraan 4,000 oo ciidana population ku nool 5,000 6,000 7,000 ka badan marka waxa weeye halkii qof oo jooga dhuusamareeb askari baa ku aaday inuu ilaaliyo tanuu ma ilaalin doonaa mase wixii daraad raadiyaasha ka socday baan rumoobi doonaa aniga ma garanayo ilaahay waxaan ka rajaynayaa in dhibaata meesha aysan ka dhicin haddii ay ka dhacdaan ay noqoto kuwa dhibka wada inay ku dhacdaysan dadka masaakiinta sababsan waxaa la yaab leh oo mucjiso ah wasiirka arrimaha gudaha aniga markii la lahaa waxaad ku wareejisay xil kuma wareejinaan wasiirka arrimaha gudaha waxaan siiyey wakaalad magaceeda wax taqaaniin wakaaladda haddii qofku wixii aad u wakiilatay xumeeyo dee waxaad ku khasbantahay inaad kala soo laabatid caawa qarafaan iyo wuxuu la fadhiyaa dhuusamareeb waa baadil waxa uu dhisay waa baadil caawa wuxuu ku soo qoray maaragtay facebook aan daayta ku arkay waxa weeye wuxuu yidhi aniga waxaa berrito waxaan dooranaynaa madaxweyne cusub madaxweynihii hore iyo dad kalena waxaan ka rajaynaya inuu la heshiiyo bal yaa u dirsaday doorashada cid u dirsatay ma jirto 4 bilood ka hor baan kala laabtay wakaaladdan siiyey wax allaaliya wixii ka dambeeyey saacaddaas wuxuu qabtana waa baadil dadkuna waa ogyahay ummaddu waa og tahay beesha caalamkuna waa og tahay waa nin weyn waa ninkii inta raadiya tv hor istaaga yidhi waa khiyaamaynayna waxaan uga jeednay inaan magaalada ku gallo been baan u sheegay war nin weyn hadduu been sheego inuu iska tagaa wanaagsan waa ceeb waxyaalaha qaarkood marka waxaan leeyahay walaalkay oo ka asluubaysa waxyaalaha qaarkood berrita waxaad soo saartaana waa baadil mana shaqayn doonaan insha allah dadka yaan maaragtay lagu wacyigelin waxyaala khalad ah hadda sheekh ibraahim miduu sheegayay waa la mudaaharaadaya waa cali iyo inta qaxooti la soo kacay ma shaqaynayso reer galmudug way yaqaanin waxay samaynayaan dalkoodii bay joogaan dadkoodii bay la joogaan waxaan idiin sheegayaa galmudug waa gobolka soomaaliya ugu qanisan walluusan u jirin gobolka qanisan beeray leedahay cali bay leedahay ma jirto waa gobolka ugu qanisan ugu batroolka badan ugu macaadinta badan ugu xoolaha badan wey dadkeeduna ay yihiin dad shaqo yaqaan oo haddii la isku duwo shaqaysan kara dekada la yidhaahdo waa laydiin dhisaa waa been waxba kama jiraan xasan cali khayre wuxuu sheegay weligii run ma sheegin waa been batroolkii daraad la saxiixi lahaa isagaa diiday ayadoo la raba in la saxiixo yaan hobyo laga godin daraaddeed wuu diiday warqad inta u qoray wasiirkii dib buu u dhigay intaasna waxaa weeye axmed ducaala meesha joogee ama ogaadaa xataa anigu waa ka badiyaa hortiisaan ogaa gadaashiisana waan ogaan doonaa 8 bilood u hartay hadduu dhammaystu nasiib leeyahay walaalkay si hays yeelo inuu dariiqa fiican raaco ayaan u wanaagsan waxaanu dhisaaya iyo waxaana ka tanasulo aad iyo aad baad u mahadsan tihiin